الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي تحناها هيدي أن وهدي جرني كدايشدا وناكسن نبينا صلى الله عليه وسلم نوغسوغان سيدي إلهي بأجري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبي محمد waxaa idinkugu sugan kudayasho wanaagsan, waxayna ugu sugan tahay cid kasta oo ilaahay rumaysay iyo maalinta dambe ee qiyaamaha ah oo ilaahayna abaalmarin wanaagsan ka sugaysa. waxaynu ku jirnay habdhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii uu la dhaqmi jiray xaasaskiisa. waxaynu qaadanaynay nabi maxamed siiradiisa isaga oo zawj ah. mar waxaynu qaadan doonaa isagoo aabba ah, mar waxaynu qaadan doonaa isaga oo qaadi ah, mar waxaynu qaadan doonaa isaga oo mucallim ah, mar waxaynu qaadan doonaa isaga oo ah awoowe, caruus awoowe soo loo dhaqmi jiray, mar isagoo marti ah, mar isagoo martigeliye ah. marka duruustan hadda taxanaha qaybtan hore waxaynu uga hadlaynay isaga oo zawj ah ama say ah. nabi maxamed bashar buu ahaa, malaa'ig ma ahayn. nabi ilaahay uu soo diray buu ahaa, naxariis ilaahay uu koonka u soo diray buu ahaa. marka ilaahayna wuxuu amray inaan ku dayano. ilaahayna waxa uu sheegay inuu ilaahay akhlaaq ku galladaystay weyn, akhlaaqdaas oo ilaahay ku tilmaamay wa innaka la ala khuluqin cadiim. mid naxariis badan ayuu ahaa. naxariistaas ilaahay uu siiyey ayay dadku ku jeclaadeen. aayad baa ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala fabima raxmatin min allahi linta lahum. naxariista ilaahay, raxmadda ilaahay uu ku siiyey daraaddeed ayaa linta lahum waxaad u noqotay mid u dabacsan dadka ayaa noqotay. ولو كنت فظا قليد القلب هدا aan lahayn mid adag oo qalbigiisu adag yahay lanfadu min hawlika wa kaakal carar lahayn. walidaalika naxariis buu ilaahay iyo kalgacayl buu ilaahay siiyay maxamed. taas ayaa waxay keentay dadku inay aqbalaan dacwadiisana ay faafto sallallahu alayhi wasallam. taasaana la rabaa dadka muuminiinta ah inay uga daydaan kalgacalka iyo naxariista iyo dabacsanaanta khalqiga ilaahay guud ahaan, gaar ahaan dadka muuminiinta, gaar ahaan dadka ku xiga ay u horeeyaan xaasaskaaga maaragtay. nabigu sallallahu alayhi wasallam xalaqadan waxaan ku soo qaadanaynaa habkii uu la dhaqmi jiray xaasaskiisa ee kalgacalka uu muujin jiray, jacaylka uu muujin jiray. jacaylka in labada qof isqaba xaaska ah, zawjka iyo zawjadiisa, ninka iyo xaaskiisu inay isjeclaadaan ilaahay ayaana amray. nabiguna sallallahu alayhi wasallam qowl iyo ficlan buu nagu tusay sallallahu alayhi wasallam. ceebna ma aha ninku inuu yiraahdo xaaskiisa waa ku jeclahay. nabi maxamed baa yiri xaaskiisii waan ku jeclahay. ilaahayna aayadda quraanka wuxuu ku yiri wa min aayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. ilaahay aayadihiisa lagu garto waxa kamid ah inuu naftiina kuwa la mid ah uu idinkaga dhigay xaasas litaskunu ilayha si aad ugu degtaan ugu xasishaan. waja'ala baynakum, ilaahayna wuxuu dhexdiina dhigay وجعل بينكم مودة كالجعيل، مودة ورحمة isku turid iyo isku naxariisasho. marka guriga hadii labada laga waayo sakankii baa meesh ka tagaya iyo deganaashii istiqraarkii inuu noqdo guri mid lagu nasto oo lagu istiqraaro oo xasilan ayaa meesh ka tagaysa. hadiyigi nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dayashada nooga baahan waxa hanuunkii nabiga waxa kamid ah inuu xaasaskiisa jeclaa sallallahu alayhi wasallam uuna u cadeyn jiray inuu jecel yahay. ceebna aysan ahayn. ragga Soomaalida waxa laga qaarkood inay ceeb u arkaan markay arkaan waxaas hindiga yaa sameeyay gaalada iyo dhaha. nabigu xaasis uu dhunkan jiray sallallahu alayhi wasallam. wuxuuna dhihi jiray waa ku jecelahay ayuu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam. waxaan ka soo qaadanaa laba saddex xadiis oo nabiga ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam. nabiga waliba wuxuu aad u jecelaa oo in badan uu ku soo celceliyay inuu aad u jecelaa Khadiija radiyallahu anha oo ay xaaskiisii u horeysay, waqtigiisana inta badan qaadatay 25 sano taqriiban. caruurtiisana dhamaantood dhashay, wixii ka soo haray Ibrahim oo Maariya al-Qibdiya ay dhashay. nabigu sallallahu alayhi wasallam Aisha waxay leedahay radiyallahu anha markii ay ka sheekeynaysay xadiiskii Muslim ku sugnaa, waxay tiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaan ka masayri jiray sheegidda badan iyo jacaylka badan oo Khadiijo u hayo. markaasaan maalin waxaan ku iri bay tiri ilaahay wuxuu kaaga bedelay mid ka khayr badan baa ilaahay kuugu bedelay. markaasuu nabigu wuxuu ku yiri إني قد رزقت حبها waxaa laygu irsaaqay jacaylkeeda waan jeclahay ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam. caaishana nabigu uu jeclaa sallallahu alayhi wasallam. xadiiskii Amr ibn Aas radiyallahu anhu saxiixaha Bukhari iyo qeyrkiisa ay wari, Bukhari iyo Muslim ay wariyeen. markii uu weydiiyay nabiga uu yiri ayu naasi ahabbu
iyaaka dadka kee ugu jecesha ayu naasi axabu ilayka dadka kee baad ugu jeceshahay markii uu yiri wuxuu yiri caaisha markaasaan waxaan ku yiri raggana kee ugu jeceshahay arrijaal qaala abuha buu yiri marka nabigu caaishana inuu jecel yahay uu muujiyay sallallahu alayhi wasallam nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegnay jacaylka uu xaasiskiisu qabo sida axaadiis saxiixa ku sugan uu dhunkan jiray sallallahu alayhi wasallam intuu dhunkada kaana yuqabbilu azwaajahu sallallahu alayhi wasallam markaa kadib salaadu aadi jiray bal isagoo sooman buu xataa dhukan jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa marka in la isku muujiyo kalgacayl xaaskaagana u sheegtay aad dhahdo waa ku jecelahay iyaduna ay dhahdo zawjkeeda waan ku jecelahay markii la kala tegayana la is dhunkado maclay siiyo wax wanaagsan weeye oo qalbiguna uu ku degayo diinteennuna ayna fartay ceebna aan ahayn xagga diinta islaamka dhaqanka wanaagsan inaan nabigeena uga dayano ayaa loo baahan yahay hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam waa inoo xalaqada tan ku xigta ama darsiga kan ku xiga insha Allah ta'ala aan kusoo qaadan doono nooc kale oo kamid ah habdhaqankii nabigeena xaasaskiisa uu la dhaqmi jiray sallallahu alayhi wa sallam